aawen muslimiintii kale, aawen carabtii wada dhalashada ka dhexaysay, misena aawen kuwii deriska la ahaayeen oo ay Masar iyo Urdun ugu horeeyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Jumco mubaarak waa muuqaal kale maalin kale qurux badan. waa walaalkiin oo maskiinka Alle. waxaan rajeynayaa inaa caafimaad qabto sida anigu caafimaad qabo, alxamdulilah. intaas kadib waxaan ku salnay xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam, khaasatan maanta maadaama ay jimco tahay, asaliga nabiga badano sallallahu alayhi wasallam. sida tamalka soo aragtay muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay walaalayn Falastiin. awal daawano muuqaalada, fadlan bilow ilaa dhammaadna la joog. maadaama ay maanta jimco tahayna aan u duceyno ayaga iyo muslimiinta kaleba. sii share garay si ducada ugu badato. waa mahadsantahay daawasho wacan. todobadii bishan Oktoobar ama bisha 10aad ee aan hadda ku jirno, walaalahan Falastiin waxaa u buuxsamay 1 sano oo xiriir ah oo ay la kulmayeen xasuuq ama dabargooyn waxa aad ku tilmaami karto, kaas oo ay ka dhaxleen gaajo, barakicin, qayn, burbur goob iyo goor walba ah, haddii ay noqon lahayd hosbitaal, masaajida, xerooyinka qaxootiga iyo goob walba oo niyadaada kusoo dhacayso. ayaga oo markoodii horeba qaxooti ku ahay dalkooda ayay haddana ku ammaan heli waayeen. yaa Allah, in muruq iyo maal lagu taageero iska daayay, waxaad moodaaba in aysan jirin xitaa cid ka hadlayso oo xasuusta walaalahan Falastiin. agabka ay walaalaha kale ee muslimiinta ah ku taageeraan walaalahan Falastiin ayaa la gaarsiin, oo kuwii ugu dhawaay darisnimada marka laga soo tago wada dhalashada diinta inay wadaagaan u dheer tahay, ayaa xadgudaha ka xirtay oo in ay wadankooda kusoo dhaweeyaan iska daayay wixii loogu deeqay diiday in loo gudbiyo Gaza. waxyaabaha laga xayir waxaa ka mid ah waxyaabaha qutul daruuriga ah sida mudaawaad, cunno, gargaarka degdega ah iyo wixii la mid ah. dabcan waan wada fahansannahay dalkaas aan ka hadlayno. haddii aadan fahansaneenna waa Masar oo aan ka sugeyno in ay naga difaacaan Itoobiya. daacadii ma jecli in aan ka hadlo siyaasad iyo wax la mid ah, khaasatan in aan kaga hadlo baraha bulshada, laakiin waxaa jiraan marmarka qaar wax aan la iska indhitiri karin sida tan oo kale. wallaahi run ahaantii waa wax laga anfariiro oo laga yaxyaxoodo, sababta oo waxaad moodaaba in ay dadkii tayada iyo damiirka lahay ee adduunyada ka dhammaadeen. su'aalo isweydiin mudan ayaa ah kuwa aan muuqaalkeena ku furnay. aawen muslimiintii kale, aawen carabtii wada dhalashada ka dhexaysay, misena aawen kuwii deriska la ahaay oo ay Masar iyo Urdun ugu horeeyaan. waxaase wax lagu farxa ah in uu gumaystaha ama dowlad isku sheega Israa'iil iyo wixii taageeraba aysan ka gungaarin oo ay weli lagdilaa yihiin walaalahan Falastiin oo markii horeba go'doon ugu jiray ayaga nacalada ku dhacday. waxaa kale oo aan ku farxi karnaa in ay jiraan dad weli cadaalad u taagan, sida dadkan ku nool dalkan Spain, gaar ahaan gobolkan Andalusia, khaasatan magaaladiisa Granada, taas oo ay muslimiin badan oo Spanish ah ku nool yihiin. marka laga soo tago kuwa aan dhaladka ahayn oo dalkan magangelyo kasoo doontay, kuwa oo ku banaanbaxaya isla markaana qaadacaya il walba oo ay dhaqaalo kasoo gasho gumaystaha, sida McDonald's iyo Burger King, oo aan wada ognahay taageeridda ay u fidiyaan mar walba gumaystaha. sida aragtaanba dadka banaanbaxayo way fara badan yihiin. qiyaas ahaanteeda waxaa ku qiyaasi lahay 2,000 3,000. inta ugu badanna waa dad aan muslimiin ahayn, sida ka garan kartaan bilibiskooda iyo waxooda. sababta qofka muslimka qaasatan dumarka oo kale waxaa lagu gartaa qamaarkooda, sooma. haddii aad fiirisid muuqaalka ama muuqaalada, haddii aad fiirisaan, inta ugu badan waa dad aanan ahayn muslimiin. sawir u sheegana qiyaasaan waxaa ku qiyaasi lahay 2,000 3,000 haddii aysan ka badneenba. waa waxaa lagu farxa run ahaantii, laakiin mid laga naxa waxaa ah kuwii wada dhalashada, diinta, derisnimada ayaga dad ugu dhawaay in ay xadgudaha ka xirtaan ama aysan la aragno. ma aqaana sidaa ku qeexa kule, laakiin waa fahmi kartaan. qofka maanta hiilkiisu geysid haddii uu ku heliyo, dabcan waa waxa aad ku tushanaysid, sooma. xoogaa ku tushanaysid.
ما أقام الله. midda annaga noogala baahan yahay ayaa waxay tahay in aan mar walba iyo meel walba aan joogno u ducayno oo aan ilaawin walaalahayn haddii aan nahay Soomaali, maadaama aan annagaba teen u yaabanahay oo aan awood kale lahayn. insha Allah Falastiin way xuroobi doontaa from the sea to the river. idan Allah adigana ha ilaawin in mar walba ducaysid. waad ku mahadsantahay daawashadaada. mar haddii aad intaan nala soo gaartay muuqaalka, fadlan muuqaalka like inoo saar haddii aad horey noola joogtay. haddii aan nagu cusub tahana nagu soo biir. intaan muuqaalka ku kulmayno aan kaaga tagaya amaana Allah.